Asalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa kulanka adag ee dhexmari doona kooxaha Arsenal iyo kooxda Manchester United. Arsenal oo imtixaan adag mareysa kulanka Manchester United. Arsenal ayaa tijaabo adag mareysa maanta oo Axada marka ay booqdaan Manchester United maadaama ay yihiin kooxda kaliya wada badisay shantii kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League. Waxayna ka hor imaanayaan kooxda tababara Erik ten Hag oo ku jirta qaab ciyaareed aad u fiican kadib markii ay soo badiyeen saddexdii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League kadib markii labo kulan oo guuldaro ay ku bilowdeen xilli ciyaareedkana. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta waxaa horyaala su'aal adag oo jawaabteeda la heli doona kadib ciyaarta Old Trafford maadaama Gunners aanay weli wajihin koox loo arko in ay ku dhameysan karto tobanka sare ee horyaalka Premier League. Kulanka Manchester United iyo Arsenal garoonka Old Trafford waqtiga waa 12 bar ee Geeska Afrika. Garsooraha ciyaarta waa garsoore Paul Tierney. Maxaa ka cusub labada kooxood? Manchester United ayaa la soo bixi doonta hubkii ay ku tashanayeen iyagoo tababara Erik ten Hag la filayo in kulankiisii ugu horeeya uu safo xidiga dhawaan ay la soo wareegeen Anthony halka Casemiro uu kusoo bilaaban doono kulankiisii ugu horeeya Old Trafford ee United. Anthony Martial ayaana weli diyaar u ahayn maadaama uu dhaawac uu qabo. Kooxda Arsenal ay weli qiimeynaysa goolhaye Aaron Ramsdale iyo xidiga qadka dhexe Martin Odegaard kadib markii ay ku dhaawacmeen kulankii ay 2-1 uga badiyeen kooxda Aston Villa. Alexander Zinchenko ayaa sidoo kale shaki ku jira sababtoo ah dhibaato uu ka qabo jilibka waxaana uu maqnaa labadii kulan ee ugu dambeeyay Premier League. Reece Nelson, Thomas Partey iyo Mohamed Elneny ayaa weli dhaawac uga maqan kooxda Arsenal. Shaxda macquulka ee labada kooxood Manchester United ayaa garoonka kusoo gali doonta goolhaye Dieye, Dalot, Fran, Martinez, Malacia, Casemiro, Eriksen, Sancho, Fernandes, Ronaldo iyo Marcus Rashford. Arsenal ayaa la filayaa in shaxdan ay garoonka kusoo galaan Aaron Ramsdale, White, Saliba, Gabriel Tierney, Xhaka, Lokonga, Saka, Smith Rowe, Martinelli iyo Gabriel Jesus. Manchester United ayaa badisay kaliya hal kulan oo kamid ah 8 kulan ee ugu dambeeyay ay ka hor yimaadeen Arsenal waxayna ahayd guushii 3-2 xilli ciyaareedkii hore ay ka gaareen. Guusha kaliya ee Gunners ay ku gaartay Old Trafford kulan horyaalka 15 kulan ee ugu dambeeyay waxay ahayd gool hal iyo eber oo ahayd bishii November ee sanadkii 2020. Gunners ayaa 17 gool daro oo Premier League ay ka soo gaartay Old Trafford. Waa kooxda ugu badan ee dhibaatada ku tahay kooxda Arsenal marka loo eego garoonka Old Trafford. Manchester United ayaa kaliya hal kulan shabaqeeda ilaashatay 16 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay la ciyaartay kooxda Arsenal. Manchester United ayaa badin karta kulankii afraad oo isku xiga Premier League markii ugu horeysay tan ilaa bishii April sanadkii 2021. Arsenal ayaa badisay shantii kulan ee ugu horeysay Premier League markii ugu horeysay tan ilaa sanadkii 2005 markaasi ay kaalinta labaad ku dhameysteen. Markii ugu horeysay ay badiyaan 6 kulan ee ugu horeysa Premier League waxay ahayd xilli ciyaareedkii 1947 ilaa 1948 xilligaasi ay ku guuleysteen Premier League. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusubtahay like noo saar, subscribe, share barnaamijkan asxaab badan u gaaro. mahadsanidin.